ku-xigeenka labaad ee golaha baarlamaanka dowladda ku meel gaarka ee Soomaaliya Axmed Dembil Casoowe ayuu kaga soo horjeestay magacaabistii shalay magacaabay gudoomiyaha baarlamaanka dowladda Soomaaliya ilaa 3 gudi isagoona sheegay in gudiyadaasi ay ku iman si sharciga iyo xeeroosaadka baarlamaanka waafaqsan waxaana sidoo kale tilmaamay in uu maalinta berita la kulmi doono gudiyada joogtada ee baarlamaanka dowladda ku meel gaarka ee Soomaaliya sida loo ogyahay shalay oo taariikhdu ahayd 31 May 2011 gudoomiyaha baarlamaanka Soomaaliyeed mudane Sharif Xasan Sheekh Aadan wuxuu magacaabay oo saxaafadda u qaybiyay liiska 3 gudi oo kala ah gudiga dib u habaynta baarlamaanka 2 guddiga soo diyaarinta qorshe hawleedka baarlamaanka iyo 3 guddiga doorashooyinka kuwaasoo uu ku amray inay hawlahooda bilaabaan haddaba sida ku cad qodobka 11aad iyo 12aad ee xeer-hoosaadka baarlamaanka oo qeexaya waajibaadka gudoomiyaha gudoomiye ku-xigeenka koobaad gudoomiye ku-xigeenka labaad waxaa cad in gudoomiye ku-xigeenka labaad yahay maamulka baarlamaanka sidoo kale qodobka 18aad faqradiisa koobaad ee xeer-hoosaadka baarlamaanka waxay caddaynaysaa in magacaabista gudiyada aan joogtada ahayn golaha baarlamaanku magacaabayo sidaas awgeed waxaan doonayaa in aan baarlamaanka Soomaaliyeed u caddeeyo in aanay gudiyadaasi ku iman si waafaqsan sharciga iyo xeer-hoosaadka baarlamaanka gudoomiyaha aan weydiinay sida uu argagixisay dhawaan uu soo gudbiyay wakiilka gaarka ee qaramada midoobay u qaabilsan arrimaha Soomaaliya Agustina Mahiga ee madaxda dawladda ugu sareyso soo gudbiyay ayaa waxa uu sheegay in isaga arrimahaasi wadil aan laga tashanin waxa weeye arrimaha ergeyga gaarka aan xafiiskayga jooga ya gudoomiyaha uu la kulmay qaybtii ay baarlamaanka ku lahaayeen qaybtii madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaruhu ku lahaayeen goolu soo arkay markaasi la iguma yeedhin la iimana sheegin waxyaalaha ay wax ka xun yihiin bay ka mid tahay reformku waa inuu hagaajiyo waxa soo dhan waxaasina waa waxa aan doonayno in qaranku ka wada hadlo qarankan waxa beesha caalamkuna way mahadsan yihiin laakiin waxaan tusaynaa qof waliba xanuunka halka laga hayo isaga sheegi kara halkaas laga hayaa inay codkayga dhageystaan anagu tilmaano meesha la naga hayo nagu kaalmeeyaan inay diyaaradna saaraan ma waa aragnimo aan u leenahay 10 sano xildhibaan soo ahaa oo ku jiray baarlamaanka meeshii wax ka khaldameen baa waan garanaynaa waa aragnimo aan u leenahay beesha caalamku hanoo dadaalaan laakiin hanna dhageystaan annaka markani ka soo yeeray gudoomiye ku-xigeenka labaad baarlamaanka dowladda ku meel gaarka ee Soomaaliya kaga soo horjeestay gudiyadii shalay magacaabay gudoomiyaha baarlamaanka dowladda ku meel gaarka ee Soomaaliya ayaa waxa uu imaanaya iyadoo maalmihii ugu dambeeyayba khilaafaad iyo isqabqabsi xooggan uu ka dhaxeeyay mas'uuliyiinta dowladda ku meel gaarka ee Soomaaliya Mandeq Maxamed Axmed TV-ga caalamiga ee Home Cable